jeclaado caadi ahaan waa dareen fiican. dadka qaar dhowr jeer ayay wax jeclaadaan, qaarka kalena weligood jecel ma helin. jaceylku isku si uma dareemaan dadka oo dhan, adiga kaliya ayaa ka jawaabi kara waxa uu jaceylku yahay. waxaa jira filimaan badan, qoraalo, heeso ah, buugaag iyo daabacaad badan oo ku saabsan jaceyl. inta badan dadka waxay rabaan inay jaceyl u muujiyaan qaabka iyaga gaarka u ah. waxaa laga yaabaa inuu kala duwanaado jaceylka, dareemo kala duwan ayuu yeelan karaa. inta badan si ka duwan ayay noqotaa marka aad muddo ku jirtay jaceyl oo ka duwan marka aad ku hor leedahay. waxaa laga yaabaa in farxad iyo murugo uu lahaado. waxaad dareemi kartaa xanaaq, geesinimo ama farxad markaad jaceyl gashid. dadka qaar way ku adag tahay inay wax cunaan ama seexdaan marka ay jaceyl galaan. inta badan aad bay u fiican tahay inaad ku dhawaato qofka aad jaceylka kula jirtid. kadib waxaa laga yaabaa inaad dareento in wadnahaagu aad u garaacmo. waxaa kaloo laga yaabaa inaad dareento walwal, farxad ama xishood. jaceylku wuxuu lahaan karaa waxyaabo laba filaan ah. waxaa laga yaabaa inaad jaceyl la gashid qof aad taqaano ama qof aadan aqoonin. dareenka aad buu u fiicnaan karaa xitaa haddii aadan wada kulmin ama wada joogin. jaceylku wuxuu lahaan karaa waxyaabo lama filaan ah. waxaa laga yaabaa inaad jaceyl la gasho qof aad u malaynayn inaad jeclaan lahayd. way adag tahay inaan ogaano waxa aan jeclaanayno. waxaa laga yaabaa inay tahay qofka, xaaladiisa, muuqaal, codka ama wax kale qofka ku saabsan. anigoon dhab u baaran dhowr jeer saragnaa ayaa jaceylku igu dhacay. dadku dhibtoodo hadaliga dhammaado adigaan ku sugay. anigoon dhabku u baaran dhowr jeer saragnaa ayaa jaceylku igu dhacay. muddan ku dhibtoodo hadaliga dhammaado adigaan ku sugay. sideen ku muujin karaa jaceylkayga? waa kuwan talooyin gaar ah. xulo sheyga kuugu fiican. ha samaynin wax qariib kuugu ah ama aan kuu fiicnayn. u sheeg qofka aad jeceshahay. waad u sheegi kartaa haddii aad kulantaan ama fariin ayaad u diri kartaa. indhahaaga ka fogey sida caadiga ah haddii indhihiinu isku dhacaan. marka aad kulantaan dhoola caddeey haddii aad u baahato. wax fiican sheeg. waxaa kugu filan inaad tiraahdo waan ka helay araggaaga ama labiskaaga fiican iyo wixii la mid ah. dadka intooda badan way ku farxaan ammaanta. waxaa laga yaabaa inay ka bilaabato wada hadallo badan. haddii inta badan aad wada joogtaan, muuji inaad qofka jeceshahay. ku casuum cunno fudud ama meelaha lagu sheekaysto. sameey wax dareen fiican ku siinaya adiga. qaada caawinaada asxaabta. qof kale ayaa kuu sheegi kara qofka aad ka heshid. dadka badankoodu way farxaan markay ogaadaan inuu qofka ka helo. waxaa jira fursad aad ku ogaan karto in qofka uu kaa helo haddii aad muujisid dareenkaaga. sideen ku ogaan karaa inuu qofka i jeclaaday? dadka qaar si cad ayay u muujiyaan marka ay qof jecel yihiin. dadka qaar iyaga isku reeba dareenka. tusaalooyinkan qaar oo aad ka dareemi karto haddii uu qofka kaa helo. qofka aad ayuu kuu fiirinayaa. qofka wuxuu inta badan jecel yahay inuu kuu dhawaado. deeqsi ayuu kuu yahay. wuxuu isku dayaa inuu saaxiib kuu noqdo. qofku wuxuu isku dayaa inuu kaa qososhiiyo. qofku wuxuu u eg yahay inuu kaa xishoodsiinayo ama markuu kula joogo uu walwalsan yahay. waxay isku dayaan inay aad kuugu fiicnaadaan markaad kulantaan. dhab ahaantii way fiican tahay inaad weydiiso haddii aad rabto in aad ogaato in qofku ku jecel yahay. adiga naftaada ayaa qofka weydiin kara ama saaxiib ayaa kuu weydiin kara. waxaa laga yaabaa inaad ka cabsato inaad weydiiso, laakiin way fiican tahay inaad ogaato. ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay
darnaanine weli waan ku sugayaa ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay mana samir darnaanine weli waan ku sugayaa lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugan tahay hatufkula socdaanahay jacayl nasiib daran sida qaalibka ah way adag tahay haddii qofka aad jeceshahay uusan adiga ku jecleen mararka qaar jacaylka waa lagu dhibtoodaa wuxuu leeyahay khibrado iyo dareemo badan ma xakamayn kartid dareenka dadka kale mana ku qasbi kartid qofka kale inuu ku jeclaado haddii uu qofka ku jecleen micnaheeda ma ahan inay wax kaa halaysan yihiin laakiin waxay sidaas tahay mararka qaar oo kale way fiican tahay inaad xanaaqdid samee waxyaabaha aad jeceshahay isku day inaad hilmaamtid waxyaabaha kusoo xasuusinaya qofka aad jeceshahay sida heesaha jecel ama sawirada qofkaad jecleed dareenkaaga u sheeg saaxiibka ama qof weyn ood ku kalsoon tahay waxaa laga yaabaa inaad si fiican dareentid dad badan ayaa sidoo kale dareema inay wax ka qoraan sida ay dareemaan dareemaha kuwa ugu adag inta badan way iska baxaan muddo kadib fadlan haddaad ka heshay sheekadan la wadaag asxaabtaada mahadsanid